Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa taxanaheennii dagaalkii koowaad ee adduunka, qaybtiisii labaad. Waxaa inoo socday asbaabihii ay ku bilowdeen dagaalkii koowaad ee adduunka. Lambar 3 Khilaafka dhanka xuduudaha ah. Ingiriiska ayaana ahaa awoodda ugu weyn dunida ciidamada badda, iyadoo ciidamadeedu badda ay joogeen dhammaan daafaha dunida oo inteeda badan gumaysanaysay, balse Jarmalka ayaa bilaabay inuu isna xoojiyo ciidamadiisa dhanka badda. Sanadii 1889 waxaa silibta uga dambeeyay Ingiriiska markii uu samaystay maraakiibta dagaalka ee abid dunida ugu weynaa ee la oran jiray Dreadnought, kuwaasoo la soo saaray 1906. Lambar 4 Loolanka dhanka xuduudaha oo u dhexeeya Ruushka iyo Jarmalka iyo Austria, waxayna Ruushka iyo Jarmalka isu haysteen sidii ay u kala qaybsan lahaayeen dhulka Poland oo hadda ah, halka ay Austria iyo Jarmalka iyo Ruushkuba ay isku haysteen gobolka lagu magacaabo Galicia. Lambar 5 Loolanka dhanka wadamada la isku yiraahdo Balkans, kuwaasoo ka go'ay dowladii Cusmaaniyiinta. Sanadii 1908 ayay Austria qabsatay wadanka Bosnia, iyadoo ku boorisay inay qabsanayso dalka Serbiya. Lambar 6 Xulufaysi ballaaran oo bilowday. Waxay u kala qaybsanaayeen laba kooxood oo la kala yiraahdo Triple Alliance iyo kooxda kalena oo la yiraahdo Triple Entente. Kooxda Triple Alliance oo ay ka mid ahaayeen Jarmalka iyo Austria-Hungary, halka kooxda kale Triple Entente oo ka mid ahaayeen Faransa, Ingiriiska iyo Ruushkuba. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe saar si uu kuu soo gaaro wax kasta oo aan soo gelino. Daawashadaadana waad ku mahadsan tahay. Siina sheer garay si aad ula wadaagto saaxiibadaada oo idil.